بصمة شباب، بصمة شباب، بصمة شباب، بصمة شباب. سنحطم اليأس المدمر بالرجاء، ونمد جسر الحب بالأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان والسلام يا داودياش شرفت له. وبرنامج امتحانها هو تسالنت دليرada. موضوعنا maanta wadaagi doonaa wuxuu noqon doonaa insha Allah dhalinyarada iyo maareynta waqtiga. Macnaheedu qaabka dhalinyartu waqtigeeda u maareysanayaan ee u maamulayaan. Ugu horreyn waxaynu isdul taagi doonaa muhiimadda uu waqtigu leeyahay, waxyaabaha qofka waqtiga ka lumis karaya ama se ka lumiya, iyo waxyaabaha ama faa'iidooyinka uu helayo haddii uu qofku waqtigiisa uu si wanaagsan uga faa'iideysto. ugu horreyn waxaynu ognahay waqtigu inuu yahay shayada ugu qiimaha badan ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala nolosheena uu ina siiyey. Waqtigu waa nolosha qofka bini'aadamka ah. Inta uu qofku nool yahay ee warlada guudkeeda jooga waa saacado iyo sekondo isku tegay. Markastoo ay maalin ama se ay saacadi dhaaftaba waxa tegaya waqti isaga ka mid ah. sidoo noo tilmaamay caalimka Xasan al-Basri rahimahullahu ta'ala wuxuu yiri: yaa ibnu aadam, inama anta ayaamu kullama dahaba yawmu dahaba ba'dak. ina aadano waxa tahay maalmo isku tegay, maalin kastoo ay maalin tagtana waxa tegay baradiga ka mid ah. waqtiga soconaya wuxuu nagu leeyahay saameyn gaar ah oo xagga adduunyo iyo xagga aakhira labadaba. oo adduunyada haddii aynu ka faa'iideysano waqtigeena si wanaagsan ula macaamilo, waxaynu gaaraynaa horumar aynu taaban karno. aakhirana sidoo kale haddii aynu waqtigeena ka faa'iideysano wixii Ilaahay raali yahay kaga faa'iideysano, waxaynu gaari doonaa joonooyinka iyo markaa naciimka Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo diyaariyey ayaynu heli karnaa. haddaba saameyntaasi waqtigu nagu leeyahay isagoo tilmaamaya caalimka Abi Isxaaq inankiisa saameynta waqtigu ku leeyahay iyo muhiimadda waqtigu leeyahay isagoo sheegaya wuxuu yidhi: tafuutu fu'aadaka ayaamu fataa وتنحت جسمك ساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت. حكولي هاي تفوت في هذا كأيام فتى وحلابت هذا مسا قلبك جوجينة أيامها وقت أيام جوجينية وتنحت جسمك ساعات نحتا ساعدها نستمر يعني واحد تعرفين يعني شركاجا وتدعوك المنون دعاء صدق وحكوية لسجيريدا أو كوية لسيار مدبا. سادرتي waqtigaasi qiimaha inta le ayaa la doonayaa inaynu ka faa'iideysano. waqtigaaga oo lumisaa waa noloshaada oo aad lumisay. waqtigu gaal iyo islaam waxa lagu midaysan yahay inuu yahay shayga ugu qiimaha badan leh saddex sababood aawadood. waa marka koowaad waqtigu waa shay soconaya oo ina dhaafaya ee maaha mid stationary oo taagan. mar labaadka waqtigu ina dhaafaya inaguma soo noqonayo. mar saddexaad waxa weeye waqtigeena dhaafay bedelkiisa ma heli karnaa, ma shay halkiisa ku bedelan karna ma heli karnaa. saddexdaas sababood aawadood ayaa wuxuu ku noqday shayga ugu qiimaha badan leh oo maanta markayna dhaafto dib uma soo noqonayso. laakiin nabigeena sallallahu alayhi wasallam xadiis inoogu sheegay inay yoomka ama maalintu ay hadasho ay odhanayso: yaa ibnu aadam ana yawmu jadiid wa ala amalika shahiid faqtanamni fa inni la a'udu ila yawm al-qiyamah. ina aadam waanu waxaan ahay maalin cusub, camalkaagana markhaati baan ka ahay, dibna uma soo laabanayo ilaa maalinta qiyaama. marka iga faa'iideyso ayay maalintu leedahay. haddaba waqtigaasi qiimaha intaa leeg leh xawaarahaasi ku jira ina dhaafaya, sidaa uu nagu dhaafaya laynagama deynayo. laakiin waxa xusid mudan in laynaga xisaabin doono, layna weydiin doono maalinta qiyaame. waa kii nabigeenu lahaa: addoonku Ilaahay agtiis kama dhaqaaqo ilaa 4 su'aalood la weydiiyo. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى سأل عن 4 إلى 4 لويديني. أفرتها وحكمها عن عمره فيما أفناه. عمري جيسي أمن لشي سوقتي ونورا اللي سيي يوحي وكدمي. أنا سو قدمنا أنا لك أقصد دفن مهمة وقت ولي هاي. أنا سو قدمنا وحيابها قفك وقتك كلمية ويبدين طبعا لك وحنا سوق قادم دونا dhowr qodob oo kuwada ugu muhiimsan ayaynu ka hadli doonaa. waxa koowa dib u dhigid. waxaad arkaysaa dad badan oo cudur daaranaya oo waqtigooda
ku luminaya dib u dhigid iyagoo dib u dhiganaya hawshooda maalinlaha ah. Dib u dhigistuna waxaa la yidhaahdaa waa tuugga ugu weyn ee waqtiga lumisa. waxaase wax lala yaabaa qofkii awood leh oo karaya inuu guto hawshiisa maalinlaha ah haddana inuu dib u dhigayo oo uu berrito shaqo maanta qaban lahaa dib ugu dhigayo. Ingiriisku waxay dhahdaan never till tomorrow what can you do today, macnihi ha u dhiganin waxaad maanta qaban karayso berrito ha u dhiganin. qodobka labaad, xamaasad la-aan. xamaasaddu waxaynu ognahay inay tahay iyaduna halka ay kasoo fusho dhiiranaanta qofku. dhiirigelintana labaa loo qaybiyaa, waa inside motivation iyo outside motivation. inside motivationku waa mid adiga gudahaaga kasoo fulaysa oo shaqsiga gudihiisa kasoo burqata, halka outside motivationkuna ay tahay mid dibadda uga imanaysa qofka. walaalkiibaa dhiirigelinay, saaxiibkiibaa dhiirigelin, dadka deegaan iyo degal wadaagayeen baa dhiirigelinaya. marka qofku dhiirigelin la-aan waxba ma qaban karo. xamaasaduna waa dhiiranaanta uu qofka howlmaalmeedkiisa ku gudanayo. marka qofka haddaanu xamaasad lahayn waxay noqonaysaa in waqtigiisa lumiyo oo markaa ku lumiyo waxaan isaga faa'iido u lahayn. cabsida waa qodobka saddexaad ee iyaduna waqtiga inaga luus garaysa. qodobka saddexaad, adiga oo aan awoodda saarin shaqadaad hayso. tusaale ahaan shaqo ama hawl baad wadaa, hawshaasaa waxaa kugu soo dul dhacday hawl kale, tiibaad faraha ka qaaday, tii cusbeedee kugu soo diriday ayaad qabanaysaa. saa darteed shaqadaad hayso xoogga maad saarin ee hawl kale ayaad ku dhex furtay. hawlo badan kolkaad isku dhex furtana maxsuul ama faa'iido kama gaadhaysid, balse waxaa dhacaysa inaad waqtigaaga luus garayso oo aad lumiso. qodobka shanaad ee ugu dambeeya ee waqtiga kaa luminaya waxa weeyaan adiga oo aan ka cudur daaran karin waxa aanad awoodeynin. qodobkii haddaan soo marinay ayay isku dhow yihiin. adigoo maanta jadwal ama iska jawaalkaaga ay kugu qoran yihiin howlo aad qabanayso kuu taxayiin ayaa waxaa kugu soo duldhacayo qofaad deetana uu ku imanaya. waxa weeye anigu iska jawaal baa ii qorana howla ayaa ii yaala, balse qofkii haddana aad ka aqbasho waxaa dhacaysa in shaqadii aad dayso aad ku mashquulsho shaqadan kale kugu soo korodhay amase qofkan ku imanaya. saa darteed qodobaadkaasi waxaa la doonayaa inuu qofku ka taxadiro si uuna waqtigiisa u lumin. waxaan soo qaadanaynaa maxaa uu faa'iidooyin helaya qofku haddii uu waqtigiisa uu ka faa'iidaysto. number 1, waqtigaaga haddii aad si wanaagsan ula macaamusho oo aad ka faa'iidaysato waxaad helaysaa markastood waqtigaaga aad nidaamsato waxaa kuu fududaanaya inaad shaqooyin badan oo kuu qondaysna aad qabato. number 2, inaad waqti u hesho horumarinta naftaada, wax soo saarkaaga oo kor u kaca iyo inaad guulo badan gaadho. qodobka 4 ee aad dhaxlayso haddii aad waqtigaaga maarayso adigoo shaqadaada nooceeda wanaaja. qodobka 5, culayska shaqadaada oo kaa cuslaada iyo khaladaadka aad ku dhici lahayd oo yaraada. waa qodobaadkaas dhammaantood waxaad heli kartaa markaad waqtigaaga maarayso ee aad maamulato, balse haddii aad waqtigaaga beerdarayso oo aad lumiso ogsoonow waxaad lumisaa dhammaan noloshaadii oo dhan. haddii aad ka taxadirto lumitaanka daqiiqadaha kaa lumaya waxaad ka taxadirtay sanadada iyo noloshaada inteeda kaleeto oo kaa lunta. 3 saacadood oo kaa lumay waxaa ka qiimo badan 1 daqiiqo oo aad haysato. daawada waxaan kugula talinaya inaad waqtigaaga ka faa'iidaysato. aad iyo aad baad mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.